filaynin waxaa laga soo qaaday isbitaalka marka ku yaale si halka aan caafimaad lagu keeno ama gargaar degdeg oo taas ka fiican la ii fidiyo. kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada wareysi gaar ah magaalada Muqdisho aan kula yeelan doono Asad Maxamed Xaaji Cali oo aad u taqaaneen Asad Xaajiyo. Asad Xaajiyo waxa uu ka mid yahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee YouTuberada ah ee caanka ka ah baraha bulshada, isla markaana waxa ay dhibaato daran ka soo gaartay dagaaladii ama weerarkii kooxaha khawaarijta ay u geysteen magaalada marka muddo haatan laga joogo dhowr iyo 10 sano ka hor. Asad ayaan fursad ku helnay inaan ka wareysano xaaladiisa nololeed. ugu horeyn Asad ku soo dhawow magaalada Muqdisho. tiimkana SNTV waan kaaga mahad celinaynaa wareysigan aad nasiinayso. waxaan ka wareysan doonaa qisooyinkii xanuunka badnaa iyo soo kabashadii noloshaada ku xeendabneed. laakiin ugu horeyn Asad 12 sano kadib ayaad ku soo laabatay Muqdisho ama dalka oo ka maqnayd. Soomaaliya maxaad ka dareentay oo isbedel ah oo ka jira? wallaahi ugu horeyn waa mahadsantihiin. 12 sano kadib been maan waa soo laabtay. waxaan ku soo laabtay isbedel weyn haddii ahaleed horumarka iyo haddii ahaleed yani dhanka bulshada iyo weliba amniga. aadaan ugu farxay markaan arkay magaaladii oo horumartay, dhismooyin qurux badan la taagay iyo weliba shacabkii oo yani ilbaxnimo ku cusub. macnaha waxaan ka wadaa yani isdhexgalka bulshada oo aad u soo badatay. soo waxyaabo badan kala kulmay oo aan ka arkay. waa mahadsantahay Asad. 27 Agoosto sanadkii 2012 koox ka tirsan khawaarijta Al-Shabaab ayaa kugu weerartay magaalada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose. Asad, maalintaas sidee wax u dhaceen dadka Soomaaliyeed? warbixin dhammaystiran ka sii adoona dul geynaya maalintaas. maalintaas waxay ahayd 27 Agoosto 2012. waxaan ahayd xilli subax ah oo aan ku sugnaa yani dukaankeyga ama goob ganacsi ah magaalada noogu yaalay. say markaas wax u dhacayeen iyo wixii soo socda ma ogeenin. wax oo markaas oo aan ku shaqlahaan ma jirin. qof caadiga iska ganacsi oo dukaankiisa u furan kaliya ayaa ahaa. soo hal mar ayaa waxaan ka wada helay dhacdan ay u dhici doonto oo xabado ayaa korka laga taagnaa. jawiga markaas ma qiimeyn karin. waxna isku ogeenin ama tuhun iguma jirin. soo kadiskaas ay u dhacday oo ilaa iyo 6 xabo iyo 7 xabo korkay ku dhaceen. mid ayaa ugu darneed oo ahaa mid oo hadda inaafeysay oo yani xangulaha gaarsiisay dhaabac. soo meesha ku dhacay kadibna dhawaaq badan maqlay oo bulshada dhexdeed qaar iga kamid ah oo dhahaya la qaadin waxyaabaas. soo dhibaatada iska badan tahay. dhibaatadaas inay ugu dhacday alxamdulillah hadda waa ka fiicanahay. muddo kadibna sababta lii dhaawacay iyo cidda ka dambeysay iyo waxyaabahaas oo dhan maan ogin. soo qof caadi iska ahaa, qof iska ganacsada ahaa oo aan dawlad u shaqeynin ama waxyaabo NGO waxyaabahaas oo dhan aan ku shaqeyn. soo muddo kadibna yani waxaa la ogaaday xog yar oo ku saabsan arrimahaas iyo waxaas. waa gaari doonaa. markii uu dhaawac ku soo gaaray waxaa weerarkaas lagu dhaawac waxaa lagu soo qaaday magaalada Muqdisho. waxaa lagu dhigay isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho. dib u xusuuso maalintaas sida uu ahaa xaaladda isbitaalka, xaaladda caafimaad ee Soomaaliya iyo rajadii nololeed aad qabtay maalintaas. wallaahi rajo ma lahayn oo aadan u niyadjabsanaa runtii. dhibaatadaas ay ugu dhacday ma filaynin. waxaa laga soo qaaday isbitaalka marka ku yaale si halka aan caafimaad lagu keeno ama gargaar degdeg oo taas ka fiican la ii fidiyo. soo alxamdulillah si fiican la soo dhaweeyay isbitaal Madiina la ii keenay. stiilna wax igu dhacay inay yihiin wax lugahayga beelay ama socodkayga waay maan ogeenin. soo way iska badnaayeen dhibaatooyinka. kadibna waxaa la ii qaaday dalka dibadiisa. soo يعني dareenkayga markaas ma la koobi karin, rajan ma lahayn. dabcan way adkeed xilligaas in xaalad caafimaad oo dibadda ah la helo. sidee ku suurta gashay in caafimaad dibadda ah lagu qaado iyadoo wadankii ay dagaalo sokay ka socdaan, kooxihii khawaarijta dawladda dagaal kula jirtay, dawladdu tabar yareyd, mise bilood aysan kugu qaadatay inaad caafimaad dibadda hesho?
والله مدة بدن يقوم قادن الحمد لله أنت داوعنا كلي لو أسبوع كدب مع يسدح أسبوع مع أن ودنك جوجي سو أنت أصبح راديني يعني دنك فيزا هاي ماليزيا يعني السعودية سو ودن بنتين واهلني oo gargaar caafimaad dalka dibadiisa lagu qaaday oo dalka Malaysia aan sidaas ugu tagay soo inta ka horeysana waxa uu soconay Kenya inkastoo Kenya nolosii sheegnay si fiican tahay Malaysia soo sababtaas aan u tagay kadib Malaysia ma ahana wadan kale caafimaad uma aad tagin Soomaa Malaysia maxamed xaaji ilka case oo dadka reer Muqdisho ay markii dambe u bixiyeen macallinkii dilaaga ahaa waxa uu ku jiray raggii kugu weeraray magaalada marka oo khawaarijta ka tirsanaa ninkaas isagoo kadib ka dad badan dilay ay dawladda Soomaaliya oo soo gacan galay qabatay waa la toogtay oo tiirka cadaaladda la geeyay maxaa dareentay markii dawladda Soomaaliya ay ninkii ku naafeeyay tiirka ku xirtay horta yani markii la ogaaday yani afaaraas oo kale ما أهين قف يعني سيحدا يعني مدة وحاجة فكر جري محو صوفتان سنان وسمي وحياة فاسيو كل أصيغ ما أهين قفك يعني وحاسمي لكن حق أيوكو شن سنة لحسن أكسوريجتي مدة أكسوريجتي ستيل مركز وحاجة فكر جري محاسمي سي أو محاها سي أو سيدان دان لو سمي ودن بنتينا يعني حقتاس ولا شيء بحكي الدن بيدن يعني waxaa qof waan hurda ka soo dhicin oo maanta dhan xaaladda markaas taagna oo kala ama magaaladiis ku sugnaa soo dhibaatay iga maaday markuu sheegay ninkaas in ama xubintaas wax uu ku geeyay dabcan wuxuu ku jiray raggii weerar ku geystay xubnihii kale ee xogtooda ma heshay iyo dadkii ahaayeen wallahi may waxaan ma raadinin waan ka socdaa bis laakiin ugu dambeyntii dawladda qabatay waxaas yar uu ka sheegay wax ka fahmay bis ma ahane qof toos ay war xaqiiqa ah ilaa hadda ma hayo laakiin boqolkiiba sababaha iyo waxyaabahaas oo dhan qaarkood wax asuu ka sheegay way dhici karaan qaarkood ma dhici karaan inkastoo iska ah qof caadi oo bulshada la mid ah sidee u arkaysa marka in laga oofiyo dambiyadii oo gali jiray ninkaasi oo dad badan oo ku dhibaatay adigu ku jirtay wallahi كلية مؤهد لاي دمان قفل بدبات لو جي أو حقيس لو سوء جي أيان كهلا عادي وكفر حي يعني إن حقيقي لسوء علي أو كلا أما بقف ما أنت حق أكه شيء أو تيرك عدالة لجينا أو كلا أما محكمة عدالة لجينا وحياس كل فرحة يو تصال وحياتها يعني برشة الصوماليات أو قفل بدبلاي كلا أو حقيس لو دعنا أو كلا مركا wax oo dareen goon ah meega lahayn ilaa iyo markuu sheegay maane in la dilay in la maxkamadeeyay waxyaabahaas oo dhan yani wax weyn ama macno weyn ma ila lahayn waxa igla weyneed inaan ogaado sababta oo ka dambeysay wax saas lagu sameeyo kale ama in wax yar xitaa aan ogaado taas ay igla weyneed SNTV ayaa laga wareystay ilka case inta aan la toogan dabcan barnaamijka gungaar ayaa laga qabtay sidee ku soo gaartay xogta ah in ninkan uu ku jiray raggii adiga ku weeraray xogtaas yani intaan la soo deenin ama publish la dhigin oo kale yani waa dabcan qofka markii la dabagalaayo saan badan la raacaa soo sawirkiisa la tusay qofka ma taqaanaa la dhahay yaa ku dhahay soo ma sheegi karay hay Cabdicaziz Afrika ma taqaan ilaa wana aristaa asagoo ahaa qof dhahay ninkaan ma taqaanaa kaliya waxay ii raadinayay inaan is aqoon iyo wax saas oo kale soo waxa ku dhamay ma aqaan kadib waa la ii sheegay in uu xog u yahay waxaas oo kale soo dhawaana la soco oo la soo diin doona leeyahay soo intaas ku gaamaan wax kale moogeen kadib wax kale oo xog ah kama adeelin Cabdicaziz oo kula soo wadaagay ilka case ma istaqaaneen yaraantaadii intaad marka ku nooleed way asad muddo dheer oo 10 sano ka badan ayaa Soomaaliya ka maqneed xaalad caafimaad miyaa ku saamixi weysay inaad ku soo laabato mise cabsi aad dalka ka qabto ayaa jirta wallahi wax badan aan dhihi karaa yani way isku jiraan aan cabsida u badnayn oo kale
ama qorsheyga ma ahan binaan haddaan soo laabto ama muddooyinkan dhow inaan soo laabto yani ebilku ma qorsheyn jirin so yani wadankii waxa uu tagay dhibaato iyo wax saasay ahayd inkastoo hadda alxamdulilah sidoo kalena nabad yani waxaana uu tagay sidoo kale dalkan wuxuu ahaa yani dhanka caafimaad oo liita so alxamdulilah haddana caafimaadkayga wuu fiicnaaday sidoo kale dalkeena wuu hagaagay alxamdulilah wax yaraan oo harsan so waxyaabahaas ugu maqneen ee wuxuu ahaa wax ani gooni gaar ah haddii aaleed yani nolosheeda sida hadda ay tahay inaan kursi aan ku socdo oo meel kasto ii fududaat inaan mar oo kale ama wax walba oo aa qabsado ama dhism walba aa galo taas ay ugu darneyd so haddana waan soo laabtay waa kan alxamdulilah okay markii dabcan xog aa ka heshay wax un xog ah ragga ku weeraray oo kiiskii dib lagu xusuusiyey waxaa jiray barnaamijyo aad samaysay oo aad kusoo dartay barnaamijyada caadiga ahaa oo aad samayn jirtay mar waxaan youtube-kaaga daawaday gabay aad tirisay bal hadda gabaygii wax ma ka xasuusataa iyo sidii dareenkaaga oo noqday dabcan waxaa ii sheegtaa hadda inaa hurdadaadii xataa uu minus ku yimid waa xasuustaa maasha allah waxaan ii qoray oo halkaan aan ka salaamaa abwaan garadoon oo maasha allah oo asagana la kaashanayay 27 agosto markii ka sheekeynayay taariikhdii iyo waxyaabahaas so asaa iga saaciday yani erey fiican oo ku habboon oo aan hore loo maqlin oo ahaa soo malinayo ama dhibkayga ku aadan so waxyaaba badan aan ka xasuustaa oo ahaa leed xul baa noqon lahaa cigaalka aan jeclaa wax saas waa mahadsantahay asad yaadan iloobin karin oo aad ku xusuusataa inuu kugu garab istaagay marxaladihii adkaa ood soo martay yani marxalo kala duwan aan soo maray guud ahaan haddii la dhaho waxaan iloobi karin oo garab istaagay familkeyga si isku duwan yihiin familka sokoono cabdullaahi xaajo oo wakiil iga noqday ama iisoo istaagay in yani idaryeelo oo ilaa iyo yani xagga caafimaad aan ka helayo ila garab taagnaa oo shaqadiisa iyo caruurtiisa bay iga soo tagay so isku duub ahaan familkaa dhihi karaa oo cabdullaahi xaajo ay wakiishteen dhacdooyinkii ku soo maray xanuunka badnaay iyo soo kabashadaadii iyo sidaad noloshaada u maareysay inaad buug ka qorto oo jiilasha dambe ay gaaraan iyo taageerayaashaadaba ma ku qorshaysan tahay ya haddaba ugu gud jiraa ayay qorshaysan tahay goormaa isleedaa buugga soo dhamay kartaa mase bilowda oo hadda bilaaw waaye inkastoo aan jeclaa lahaa in sanadkan uu soo baxo laakiin waxaan arkaynaa ama qorsheynona inaan ku aadino xilliga dhacdadan dhacday asad waxaa tahay youtuber caan ah oo dadkiisu jecel yihiin xaalad adag oo qofku inuu ka soo kabsado ay adag tahana waad soo martay maxaa kaa saaciday inaad nolosha guul ka gaarto wallaahi wax badanaa iga saaciiday haddii ahaa lahayd adkeysigeyga iyo haddii ahaa lahayd samirka aan nolosheeda ku samray iyo haddii ahaa lahayd dadaalkeygaba ha u badnaata aan dhihi karo dadaalkii aan dadaalay meeqa sana ka hor ayaad bilowday inaad aaladda youtube-ka caan ah ku tahay aa wax ku bahayso wallaahi youtube hadda 5 sano ku jiraa 5 sano ka hor kusoo biiray oo haddana aan ku noqday qofka ugu subscribe badan channelada Soomaaliya ay leedahay meeqa subscribe haystaa 2.7 2.8 u socdaa 2,700,000 way muuqaalada yaa ku sameeya yaa kaa duuba yaa hal abuurka kaa saacida inta bana isku hayo ilaa maahan in laga duubo yani inta aragtay dhan dadaalkeeda waxyaabahaas oo dhan aniga kusoo bixiyey fikrada anaa lahaa editingkan anaa lahaa wax kasta oo markaas oo balan garayan anaa lahaa waxaa keliya oo liiga saacid waxa waaye in lii duubo oo kale 5 sano ka hor inta aadan bilaabin inaad aaladda youtube-ka wax ku baahiso oo aad muuqaal iska samayso maxaa samayn jirtay intaa qurbaha ka tegay mise markii inta joogay yacni intii aad dhaawac kasoo kabsatay kadib muuqaaladana aadan bilaabin waa fahmay xirfad badanaa leeyahay
haddii aaleed computer sameynta cilad bixinta programmingka installationka waxyaabahaas oo dhan iyo welibana sawir qaade so shaqadii u badanaa marka inta ka tegay waxay ahayd photographer amaba markii dhaawaca kasoo kabaday oo before youtuber aan noqonin waxaan ahaa sawir qaade oo qof walbo yani asaga jira haddii aaleed kuwa modelka ama haddii aaleed xaflada arooska iyo haddii aaleed kuwa businesska magaalada marka oo aad ku ganacsi jirtay haddaan dib kuugu celiyo oo dhibaatadan ay kugu gaartay maxaa ka qaban jirtay ganacsigaaga nooco ahaa waxaa ii furnaa stationery iyo printing halkaasaa ku baratay halkaasaa ku bartay editing iyo waxsaas so hore ugu soo shaqayn jiray ma jeclaan lahayd dhowr iyo 10 sano kadib inaad marka dib u booqato miyay qorshaysan asad maxaad fariin ah oo u diraysaa dadka sidaada oo kale wheelchairka ku aruuray ee haddana isdhiibay ay u saamixi weysay sidaadoo kale inay u dhiiradaan wallaahi waxaan fariin tusaale aan u diraa dadka ila mid ahaa ama dadka hadda ila mid ahba horta markasta qofka hadalkeega ma ku dhiirigeliyo dhiirigelin qofkan waxaa ugu filan yani aragtideeda ama taariikhdeeda inuu dib u fiirsado ama dib u dhageysto ama sidaa ahay inuu arko yani ku filan يعني تصارع أما وعيقلين ضدك جيف أنا إلا مد كلمة ضد عادي الصعدة أو لحات كود قو حتى يعني ويقول ديان كران أو تصالو نخن كران so ضدك هذا كلمة أو بعد جارك قو إن كستو إيجن يقدرينهن أما يقبضينهن إن أي نلاش أي كني جوان so مركو حد لا فريق كا وهي وحقب سو بالشدة سوقل أسد ما سنتاي tan iyo markii aad ku soo laabatay magaalada Muqdisho waxaad la kulmaysay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan madaxda dawladda ugu horeeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo xafiiskiisa ku qaabilay warbixin naga sida ay ku soo dhaweysay dawladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho ما شاء الله horta dhamaan ummadda Soomaaliyeed khaasatan reer Muqdisho aadan u mahadcelinaa sida qurux badan ay soo dhaweeyeen saqiirkood wala kabiirkood uu weyn yahay madaxweyne mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxa ii suurtageliyay waxyaabahaas oo dhan qorshe goon ah ma aheenin soo yani soo socodkayga soo laabashadayna yani dad yara ogaa يعني team 27 qaar way ogaayeen maadaama aan ku sheegay YouTube-kayga dadka madaxda dawladda ana qaarkood yani waxa ogaayeen wasiiro iyo xildhibaan oo igan isla team 27 kamid ah maadaama ay support gareeyaan maadaama marta aan u noqon doono yani way fadhin waayeen wax fiiskood way kasoo tageen si ay soo dhaweeyaan so markaas soo digay airport-kana oo aan arkay yani bulshadii aad soo dhaweysay oo ma sha Allah anay xitaa aan fil waayay oo aan arkay in midaas dhiirgelin ay tahay oo hor u socod taageer ay tahay marka arkay ayaa waxa isdhay ma sha Allah wadanka walaga jecel yahay so qof walbano yani maanta dhiirgelin haduu kaga baahan yahay wax kasta ku dhiirgelin kartaa so sidoo kale dhiirgelinta u weyn waxa ka helay madaxweynaha dalka mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo asigana iwaaniyay dhiirgeliyay isoo duceeyay yani talooyin badan siiyay waan ku farxay la kulankiisa iyo dhamaan mas'uuliyiinta dawladda iyo shacabweynaha reer Muqdisho aadan u farxay oo man filin insaan la soo dhaweyn doono asad waxa ii sheegtay inaadan dib ugu laabanaynin oo isku qorshaysnay inaad ku laabato magaaladii marka ay dhibkan kugu soo gaaray si guud Soomaaliya muddo ka badan 10 sano ayaad ka maqnayd yaa kugu tashkiiliyay inaad ku soo laabato Soomaaliya hadda soo farkaagan مساسا وليس كو قادتay والله يعني horta mar badan waa ku fikir jiray in aan soo laabto waxaan u fiirin jiray marxaladda markaas dalka uu ka jiro so waxaan ahay qof yani bulshadeed la socda macna bulshada waan la socday wixii dhacay waxyaabahaas oo dhan news-ku waa la socdaa iyo horumarka waxyaabahaas oo dhan so marka waxa isdhahay waqtigeed hadday ku leedahay Soomaaliya oo aad u soo kabatay la hormaray nabadgelyo waxyaabahaas ma fahmi so marka taas ay igu weyneed soo laabashadeeda ama go'aankay ku aadan in aan halkaan ay imaado marka tiin waa arkay ma sha Allah nabad yani dalku u fiicnaaday
bulshada ka maqan ee muddo ugu dambeysay sideeda oo kale iyagana dalka ha soo fiiriyaano ha ku baashaalaano ha ku dalxiisaano kadibna hadday rabaan go-aankooda iyaga markaas dhiibanaya inay joogaan in kale laakiin maasha allah meel fiican oo qurux badan waa halkan. ma aaminsaneed muqdisho inay sidaa nabad u tahay maxaa ka aaminsaneed adiga intaada imaanin? walaa intaan imaanin yacni inay iska dhibaato badan tahay oo maadaama haddana dalkii dhibaatadan iga soo gaartay stiil haddana uu yahay oo yacni meel iska dhibaato badana oo malay jiray ilaa iyo meelaha qaar maahane haddana dhammaan waxaa arkay iyo sida loo socday iyo si la iga sheekeeyey waxyaabahaas oo dhan marka aan fiiriyeen saan u malaynaya si kasii fiican waa weliba. asad mar kasta waxaa maqalnaa team 27 maxaa lagala jeedaa magacaas u macnay bulshada Soomaaliyeed? team 27 team oo goona oo aas ma ahan laakiin waa magacaan oo daray qof walba oo support garay. so team 27 team waa 27 macnaheed waxa way xilliga la dhaawacay 27 Agosto so short ka dayaa ka dhigay 27 sidaas oo la baxay si aad ugu xusuusato. xasuus kaliya ma noqon kartay astaan oo qof walba oo support garay aan oo magac dar waa team 27. marka dabcan waa taageerayaasha iyo dadkii u xiran. hadda waxaad joogtaa Asad magaalada Muqdisho oo sanado badan aad ka maqneed dabcan si weyn loogu soo dhaweeyay waad aragtaa anaguna waan aragnaa maxaa ku qorsheysan ma sii joogi doontaa dalka oo Muqdisho iyo gobolada kale ee dalka inaad iska sii joogto ma ku qorsheysantaa mise dibadda ku laaban doontaa? still go-aankaas ma gaarin ay ma qorsheysan ma inaad joogto mise inaad laabato ma aqaan. macnaha hadda wax go-aan kama aad wiilha go-aan ma ka gaarin wiil Muqdisho ugu damaashada. gobolada dalka markii laga soo tago Muqdisho gobolka jeclaan lahayd inaad u dalxiis tagto oo waqtigaa ku soo qaadato oo aad jeclaan lahayd inaad tagto? gobol haddii la dhaho jeclaan lahaa maaha mise deegaan? intaba deegaan haddii la dhaho dabcan marka si fiican dhul xeebeedka marka kusoo dalxiisa lahaa meel kale haddii dhihi lahayne waxaa dooran lahaa baddaas Warsheekh iyadana way qurux badan tahay intaa ka arkay. gobolada fogna haddii la dhahone yani waxaa tegi lahaa dhul xeebeedka bari iyo kuwaas Boosaaso iyo kuwaasna waa tegi lahaa. so laga yaabaa qorsheyga inaan ku darsado laga yaabaa inaan ku darsanin so marka go-aankeed anaa leh so still ma ka fikirin intaas. aad u mahadsantahay Asad Xaajiyow waa tahay daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa wareysiga gaarka ahaa ee Asad Maxamed Xaaji Cali Asad Xaajiyow aan kula yeelanay xaruntiisa oo ka degan yahay magaalada Muqdisho oo aad uga mahadcelinayno tiimkeena SNTV wareysigan oo naga ogolaaday dabcan aan rajeynayna inaad wax badan oo noloshiisa ku saabsan aad ku fahanteen. tan kulanti dambe waan kaga mahadcelinaynaa sida wareysigan u daawateen nabadgeliyo. mahadsanid Asad.